wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda Soomaaliya iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa gaaray magaalada Jidda ee dalka boqortooyada Saudi Arabia halkaasi oo ay uga qayb galayaan shir degdeg ah oo ay yeelanayaan wasiirada arrimaha dibadda. Wariyahayaga Cali Jaamac Cilmi Cali Kuus ayaa warkan nooga soo diray. wasiiru dowlaha arrimaha dibadda dowladda federaalka ee Soomaaliya mudane Cabdulqaadir Axmed Khayr iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa ka soo degay garoonka dayuuradaha caalamiga ah ee Malik Abdulaziz ee magaalada Jidda isagoo ka qayb gali doona shir degdeg ah oo isugu imaan doonaan wasiirada arrimaha dibadda ee iskaashiga ururka islaamka OIC oo ka dhici doona xarunta OIC ee magaalada Jidda kaas oo ku saabsan sidii loo cambaareen lahaa qorshaha ra'iisul wasaaraha Israa'iil uu ku damacsan yahay in qayb ka tirsan dhulka Falastiin uu la wareego haddii mar kale loo doorto jagada ra'iisul wasaarenimada. haddaba wasiiru dowlaha arrimaha dibadda ee Soomaaliya mudane Cabdulqaadir Axmed Khayr iyo wafdigiisu waxaa si diiran ugu soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha ee Malik Abdulaziz ergada joogtada dowladda federaalka ee Soomaaliya u fadhiya iskaashiga ururka islaamka Danjire Cabdirasaaq Siyaad Cabdi si haya safaarada Soomaaliya ee ku leedahay dalka boqortooyada Saudi Arabia mudane Salim Xaaji konsulka guud ee Soomaaliya u fadhiya magaalada Jidda mudane Ilyas Sheekh Umar ku-xigeenka konsulka guud mudane Axmed Maxamuud Diiriye Macruuf xogeeyaha koowaad ee ergada joogtada mudane Maxamuud Umar Maxamuud madaxa laanta wasaaradda arrimaha dibadda ee gobolka Jidda Danjire Jamaal Bakar Balkuyuur Dr. Abdul Nasir Ahmed oo ka tirsan maamuuska wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka boqortooyada Saudi Arabia. Cali Jaamac Cilmi Cali Kuus warbaahinta qaranka Soomaaliya Saudi Arabia.